waxa uu qofkaasi yeelanayaa calool istaag waayo cuntadii lama burburinayo cuntadii sideedii baa soconaysa muddo dheer baanay cuntadaas ay caloosha ku jirtaa waayo cid burburiso lama helin markastoo ay caloosha cuntada isku laabto isku marto waa markastoo ay fuudaanayso cuntada inay ka baxdo caloosha ay madhicirka xaggooda ay qabato tusaalaad fahmi kartaan siiyo ma maqashay qofa intuu casarka maydhay baa lagu yiri hawa ku gashay naqaska qofkii casarkii soo maydhay deedna markuu casarkii maydhay baa banaanka u soo baxay la qabooyo waxba ku dhacay 3 saac 4 saac ka bacda naqaska qabtay deedna wuxuu naqaska hayo waxa weeye hawa ay gashay soo warka mid maqal xilliga min ramadaan aynu ku jirno xilliyada afurka saambuus baynu ku afurnaa waxyaabaan ku afurnaa waxa kamid ah biyo qabooban ku afurnaa waxa jira muuqaalaha baraha bulshada soo galiyo oo kaga hadlayo faa'iido darrada caafimaad ay leedahay biyaha qabo oo xilliga afurka la isticmaalo saambuuska oo xilliga afurka la isticmaalayo faa'iido darrooyinka uu leeyahay aan tusaale yar ku siiyo heer kulka jirkeenu waa 37 ee gudaha ma aha dushan sare gudaha jirka heer kulkiisu waa 37 waxaan hadda ku sheegay caloosha marka cuntadu ay tagto in caloosha ay ka qayb qaato cuntada burburinteeda iyo isku laaqideeda Soomaha caloosha ka qayb qaato waa muruq weeye muruqaasi ka qayb qaadanaya heer kulku ku nool yahay hadii aan biyo qabow cabo biyahaasi qabow oo heer kulkooda uu 7 ilaa 8 u yahay mararka qaar koodna waxa laga yaabaa sharaabka in dhowr xabo baraf lagu rido lagu keeno sharaabka xilliga afurka isagoo maca barafkiisi uu dusha ka saaran yahay Soomaha barafkii uu ku milmay qayb kale oo dusha ka sii saaran baa lagu keenayaa waa baraf Soomaha oo balas isagoo ah lagu keenayaa biyaha marka aad cabto ay calooshaada ku dhacaan muruqyadii caloosha ee 37 heer kulka ah yaqaanay marka mar qura heer kulkoodii 10 la geeyo dig bay galayaan muruqyada waxa lagu talagalay muruq caloosha inuu dabacsanaado si uu cuntada marba dhinac ugu rogo oo isugu laaqo marka heer kulkoodii la bedelo uu adkaanaya tusaalaad fahmi kartaan siiyo ma maqashay qofa intuu casarka maydhay baa lagu yiri hawa ku gashay naqaska qofkii casarkii soo maydhay deedna markuu casarkii maydhay baa banaanka u soo baxay la qabooyo waxba ku dhacay 3 saac 4 saac ka bacda naqaska qabtay deedna wuxuu naqaska hayo waxa weeye hawa ay gashay soo warka mid maqal warka ma maqashay warkaas ku faahfaahiyay hawa qofkan gashay ma jirto hawa qofkan gashay ma jirto hawadu goormay ku galineed imka xilliga xagaaga marka aan wadada weyn aan marayo waxa soo dhacda leyd aad u badan baa soo dhacda Soomaha leydha anigoo laabteedu kala baxsan tahay bay leydhu soo gashaa maxay leydha aad ka u badani ay ii gali weeyday waata xubnahaaga jirka sawirta Soomaha leydhaas dabeesha ay wado dabeel xagaagta ay wadaay waxa ay sawirtaa waxa way codkayga way noo maqlayaan Soomaha saaseen ku wadayna ha xilliga xagaaga hawada aad ka u badan ay dhacayso ma nidhaahno waxa weeye dabeel baa ay gashay ma nidhaahno maxaan u oranaynaa xilliga waxa weeye xilligan maxaan u oranaynaa sababtan ku sheegaya marka aan musqusha ku jiro waxa laga yaabaa musqusha aan ku meeranaya inay dusha ka dadan tahay waa macquula inaanay ka dadnayn waa macquul laakiin afarta gidaarba way ka xiran tahay Soomaha heer kulkii gudaha musqusha ka jiray waa dhexdhexaad biyahana waxaan ku meeranaya biyaha qasabada iyagana heer kulkoodu waa dhexdhexaad biyahaas marka aan ku meeranayo jirkaygu kala baxsan yahay imika xilli kuleelaaben ku jirnaa Soomaha qof miyuu jira sida u fadhiyay imika qof walba jirkiisu kala baxsan yahay uu kala baxsan yahay Soomaha sababtoo ah kuleyl baa dareemsa waxaad u baahan tahay inaad qabow hesho laakiin xilliga qabowgu dhacayo dhaxan ay dhacayso sida uma socotid adigoo laabta taagaya laakiin waad soo ururisaa adigoo doonaya maxay heer kulka jirkaaga inaad isku soo celceliso Soomaha haddaba musqusha markaan joogay iyadoo laabteedu ay bannaan tahay baan meedhanayay heer kul caadi aan ku meedhanay markii aan albaabka sida isaga furay waxa isbedelay heer kulkii gudaha musqusha ee aan ku jiray iyo heer kulka banaanka yaalaba laabta kala baxsana bay leydha qabow ku dhacaysa marka sida u dhacdo jirku wuxuu isku dayayaa leydhan qabow ee soo gashay heer kulkan marka qura isbedelay inuu iska celiyo deedna muruqyada laabta ku yaala mar qura isgalayaan dig bay noqonayaan isdhufashada ay muruqyadu marka qura ay isdhufteen baa qofka xanuun ku keenaya marka koowaad ma dareemayo marba uu ka soo xanuunka marba uu soo dareemaya saacad ba saacada ka dambaysa
xanuunka uu ka dareemayo uu soo kordhaya naqaska uu qaadanayana saacadba saacadda ka dambaysa uu sii yaraanaya hadhowta marka uu neef dheer qaato ma qaadan karo neef dheer ma qaadan karo laabtaa xanuunaysa hadda ma aragtaa waxa dhibaatada u keenay waa maxay waa isbedelka heerkulka ee ku dhacay haddii isbedelka heerkulka lagu sameeyo jirkaagii oo afartii iyo barhkii calooshaad iyo mindhicirkaaga wax qabow ay ugu dambeeyeen oo heerkulkoodu 37 ay yihiin oo acid fara badan ay joogto oo jirku uu engegan yahay markaad biyo qabow aad ku shubto isbedelka degdeg aad ku sameysay calooshaad ku sameysay xanuun mooye faa'iido ma laha kow caloosha muruqyadii ku yaalay oo dhan way adkaanayaan waa labo marka cuntadii la burburin waayo aad cunto oo la waayo calooshii isku magdi lahayd ama isku mari lahayd la waayo waxa badanaya acid la soo deynayo aashitada caloosha la kordhinaya markastoo aashitada caloosha la kordhiyana waa markasta oo gaaska aad dareemayso iyo laabjeexa aad dareemayso uu fara badanayo waxa uu qofkaas yeelanaya calool istaag waayo cuntadii lama burburinayo cuntadii sideedii baa soconaysa muddo dheer baanay cuntadaas ay caloosha ku jirtaa waayo cid burburisan lama helin markastoo ay caloosha cuntada isku laabto isku marto waa markastoo ay fuudaanayso cuntada inay ka baxdo caloosha ay midhicirka xaggooda ay qabato waxa taa la mida sambuuska la mida 13 saacadood wax ka badan oo ay calooshaada iyo midhicirkaagu wax shaqo aanay qabanin marka cunto culus aad ku rido sambuusku waa tusaale ka mid ah cuntooyinka saliidda lagu dalaacay waxa la mida hilibka la mida suqaarka la shiilay baa la mida quraaca saliidda laga soo saaray baa la mida cunto kasta oo saliid soo martay baa la mida taa sheegayo iyo cunto kasta oo dufan leh marka ay calooshaada ay ku dhacaan cuntada dufan kale waxa ku sheegay inay waqti badan ay caloosha ku qaato waxa ku sheegay inay tamar fara badan iyada laga helo hadhowto xitaa marka la burburinayo culays badanna ay leedahay caloosha awood uma yeelanayso shaqadan weyn inay qabato sida awgeed waxa ugu wanaagsan ee qofka caafimaadkiisa xilliga afurka uu ku ilaalin karo waa inuu sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam uu raaco nabigu muxuu ku afuri jiray tibir iyo biyo carabaha haddaad imika tagto ama dad carabeed meel wax kula afurto xilliga afurka waxay ku bilaabaan biyo iyo timir biyaha iyo timirtu waa laba aad u fudud biyuhu yaana qaboobaan biyo qabow lama rabo biyaha qasabada caadiga ah koobka u shubanaysa 3 xabo timir 5 xabo tirays dheer kiilooba cuno tirays dheer ka cun marka aad qaato timirta iyo biyaha aad qaato waa cunto aad u fudud waana sonkor markiiba waa la nuugaya waxa weeye timirtii waa la nuugaya wadadiina way ku salaxaysaa calooshii waqti yar bay ku jiraysaa wax laga yaabaa in calooshiba ku jirto inta aad salaada maqrib aad tukanayso marka maqrib aad ka soo baxdaba cuntadii caloosha ka baxda mindhicirkay sii socota wadadii waa lagu sii xaaray marka aad maqrib tukato ka bacdi aad sunnaysato wax allaala waxaad doonto ilaahay ku xalaaleeyo cun neef dhan cun haddaad doonayso laakiin xilliga afurka ha ku bilaabin waa caafimaad darro weeye hadda ma aragtaa dadaal Islamic Online Academy akaadimiyada dadaal ee barashada sixidda iyo xifdinta quraanka kariimka waxay ugu bishaareynaysaa dadka waaweyn iyo waalidiinta ubadkooda la raba barashada quraanka inay bishan cusub qaadanayso fasal cusub dadaal Islamic Online Academy waxay bixisaa koorsooyin badan waxaana kamid ah barashada quraanka kariimka barashada luqadda carabiga barashada culumta shariicada sida caqiidada ama waxa loo yaqaano Islamic Studies barashada ducooyinka tafsiirka quraanka kariimka iyo siirada nabigeena sallallahu alayhi wasallam dadaal Islamic Online Academy waxa ka qalin jebinaya dufcadii 6aad ee quraanka xifdisa barata culumta shariicada islaamka fadlan hore u gaadh aad ka mid noqotid dadka barta quraanka iyo culumta shariicada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda oo u qaybsan qaarad kool ahaan ku soo wici karto iyo qaarad WhatsApp ka helayso ama web page-keena dadaal Islamic Online Academy linkiga hoose ee WhatsApp-ka click toos baad xogta u helaysaa waana kula soo xiriireynaa fadlan ha moogaanin dadaal Islamic Online Academy